dhegeystayaal markana kusoo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa inala socodsiinaya. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegaystayaal weli waa hashii gabay iyo sheekooyinkii la xiriiray. kolkol ayaa waxaa dhici jirtay laba maansayahan ama ka badani col duulay oo geeldoon ah inay ka mid noqdaan. ka soo qaad haddaba in colkaasi uu galo reero baraadla oo nabad u fadhiya, inuu ka soo mooro duugo horweyn iyo haleelo wixii ay dhaqeen, maqrib dumayna uu xeryaha u madoobeeyo. ka soo qaad intuu colkaasi gabagaba dhigo in qaybsashada geela ka hor raggii dheeraadka la siin jiray uu ninba tuludiisii u soo jilba jabsado. su-aashu kolka waxay tahay, ileen maansayahanada colka la socdaayay hadda nin keliya ma ahee, torow hasha gabay markii la soo gaaro yaa qaadanaya. siday u badnayd waxay uga hadi jireen kolba intoodaas midka ugu gabaysan ee dadweynuhu ay taana u aqoonsan yihiin. ama dad waxay ahaayeen ruuxa da'da weyn maamuusee kolba kooda ugu dhallin badan ayay hashaas iyada ah u deensan jireen. iyada oo guud ahaan ay arrintu sidaa tahay ayaa waxaa marmar dhici jirtay sidaas gabyaagii loo murweyn jiray inuu ku soo baxo mid kale oo wax ugu wacanba hashaas ku hadla oo inta xila daraaqa haddana saddexdii walaahood ku mara in isagu uu tuludaas ku gar leeyahay, haddaan la siinna uu geeso dhiig leh ka xigi doono. taa oo kale waxay la soo gudboonaatay gabyaa reer bari ah oo la odhan jiray cali maxamuud samatar, cali guray dashiishana ku magac dheeraa. raggii gebyi ogaa ee haddana dagaalyahanada ahaa ayuu ka mid ahaa. weligiina siday wariyeen kama uu hadhin duulaan baxaya, geeldoon ama dhiigdoon ku ahaadaba. wuxuu ahaa nin uu magaciisu aad u dheeraaday oo madax iyo manjaba ay bulshadu kobta uu joogo ku soo xoonto. beri baa haddaba gabyaa kale oo ay dagaan wadaag ahaayeen isagana aad u yiqiin waxaa la weydiiyey, hebelow, rag intaad la shirtay ee aad la sheekaysatay yaa kuula sitay? markaas buu yidhi, meel fogba kama uu doonine wuxuu ku jawaabay 2 meelis oo uu cali guray ku ammaanayo, uuna ku tilmaamayo inuu yahay ragannimo oo idili nin ay ku idishahay, ceeb iyo wax lagu nacaana aanay meelnaba uga soo dhowaan. wuxuu yidhi, gar la naqo, guddoon laysu waco, golo la maageero, gur iyo toos nimaan gaal lahayn, cali guraan sheegay. cali guray ninka sidaas lagu tilmaamay ayuu ahaa. waxaase u dheeraa inuu u kala hiilin jiray sayid maxamed iyo boqor cismaan oo siyaasaddii markaa gobolka ka aloosnayd ku colloobay. boqorka ayuu dhinaca saari jiray, wuxuuna ugu horreeyey raggii sayidka u gebiyey ee daraawiishta sida ba'an magacooda iyo muuqaaladooda u xumayn jiray. taa awgeedna wuxuu boqorku abaalgud uga dhigay colkii uu ku jiraba in hasha gabay uu isagu leeyahay. guddoonkaas oo la wada og yahay ayaa maalintii dambe waxaa la qalqaalay col uu gabyaagaasi ka mid ahaa. ciidan mahigaana markii la ururiyey ayaa sidii cadadu ahayd boqorkii sii sagootiyey oo wixii uu kala ballami lahaa kala ballamay una duceeyey. dabadeedna markuu u hogbaday inuu xaruntiisii dib ugu noqdo ayuu ku baraarugay gabyaa marada dacalkeeda ku dheggan oo ku leh, boqorow hasha gabay, boqorow hasha gabay, boqorow hasha gabay ii guddoomi. boqorkii oo sida ninku u dhaqmaayo aan jeclaysan ayaa ku yidhi, war hasha gabay waataan beri hore cali guray u guddoomiye, orod oo colka raac lagaa tegi. ma uu yeeline baryadii iyo docogaysigii ayuu sii kordhiyey, isaga oo boqorow hasha gabay sidii sii hore ugu celcelinaya. boqorkiina intuu aad u qoonsaday ayuu si uu isaga furfuro wuxuu ku yidhi, war baramaashayda kac qaado oo kol uun marada ii sii daa. kiina
isaga oo weedhaas ku faraxsan asii aan markhaati u haysan ayuu colkii ka daba tegey. maalmo kadib geel ay soo qaadeen markay inta la soo cid galeen ay qaybsanayaan ayaa Cali Gurey hashii loogu yeeray. waxaase sida la malayn kara ku qabsaday gabyaagii kale ee sida dirqiga u eg aftida caatada ah boqorka uga soo qaatay. qir iyo qir sooma noqon, soo raggiina labadoodii lama kala safan. markaas buu Cali Gurey afkiisa la baxay oo gabaygii alla baray ku dacwiyey, isaga oo tirinaya dadka iyo dhulka ballaaran ee laga og yahay guddoonkii boqorka ee ahaa in hasha gabay uu isagu leeyahay. isaga oo kii wax ku haystay si aan toos ahayn ugu tilmaamaya inuu rag rif yahay ayuu yidhi, in guddoonshihii igu rayiday gabayga ruuddiisa hartiyaasha roox iyo ka shiran raanta sare baa og, ingiriiska roodiya fadhiya ramal carbeed baa og, culimmada cilmiga raacato oo run u dhowaataa og, waayeel rubaysiyo raggii rugaha joogaa og, ilaahay raxmaan iyo intuu ruuxa geliyaa og, anfifaa ma sheegine intii rag itaqiinba og buur. tixdaas gaaban markii la maqlay ayaa colkii oo iliili Cali Gurey u garaabay. dacwigiisii baa madaxa loo wada ruxay. markaas baa isla goobtii hashii lagu guddoonsiiyey, iyada oo kii ku haystay ay indhihiisu shan yihiin, jirkiisa meeshii laga saraana aysan dhiig lahayn. isla waayadaas ayuu Sayid Maxamedna guddoomiyey in geelii ay daraawiishi soo qaadaba Ismaaciil midha hasha gabay laga siiyo. maalintii dambe ayaa waxaa duulaan u baxay col uu Ismaaciil ku jiray, si uu ammaanduule ka ahaa darwiishkii la odhan jiray Abshir Dhoorre Xasan oo ka mid ahaa ragga dagaalama iyo qusuusidii wadaadka la talin jirtay labadaba. sababta garan mayne, Abshir hashii gabay ee sayidku u xukumay Ismaaciil waa u diiday. markaas buu isna mariyey tix uu arrintaa kaga cabanayo uuna ku sheegayo waxa uu ciidanka ugu filan yahay iyo sababaha ay tahay in dartood hasha gabay lagu siiyo. wuxuu sidoo kale tixda bilowgeeda ku xusuusanaya raggii uu la duuli jiray ee hashaas aan weligood muranka ka gelin, kuwaasoo uun aakhiro u batay. wuxuu yidhi, cadka gooji nimankii ibarayaanan soo gocanne, garwaaqsiga ammaaniyaan ilmadu gaadada i qoyne, emrigiin ma gaabtee hashii gabay hallaysiiyo. daraawiishta goomanay hadday guriga soo gaadho, galaxeeda caanood hadduu gaari kari waayo, galowdaan u taabanahayaa gu'ya jiilaale, emrigiin ma gaabtee hashii gabay hallaysiiyo. dabatadaba wuu gabay wartaan garawadeeniiye, gawaamahaba waa kaga tagtaan dhogorgardhaaleeye, emrigiin ma gaabtee hashii gabay hallaysiiyo. guuraha habeenkan sidii galow u yeeraayo, galiilyadana waa kaga baashaa sida gal roobaade, emrigiin ma gaabtee hashii gabay hallaysiiyo. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga. waa in toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.